munaasabadan oo ka dhacday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa xilkii si rasmi ah ugu wareegay agaasimaha komishanka xakamaynta HIV/AIDS ee dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo magacaabay waxaanu xilkaasi kala wareegay agaasimihii hore komishankaasi. munaasabadani waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, mas'uuliyiin ka mid ah komishanka xakamaynta HIV/AIDS, qaar ka mid ah hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin iyo marti sharaf kale. waxaa halkaasi ka hadlay agaasimihii hore ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS Axmed Cabdi Ismaaciil waxaanu ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu joogay xafiiska. muddada halkaasi aan joogay waxaan ku soo koobi doonaa baahihii aan markaa arkayay baan sidaad ka jawaabtaan. waxa ugu horeeyay waxay ahayd in shuruucda iyo qawaaniinta iyo qorshayaasha dib loogu noqdo. agaasimo cusub ee Dr. Ismaaciil waxaan ku diyaarinay muddadaas in aanu culino xeerkii hortaga xakamaynta HIV/AIDS. waa xeer madaxweynaha ayaan gudbinay inuu horyahay. waxaan kaloo culinay siyaasadda hortaga xanuunka HIV/AIDS-ka. waxaan kaloo qaabis iyo xidhiidh ku sameynay xeerka aasaaska komishanka qaranka oo runtii qodobo iska hor imanaya ay ku jireen. waxaan culinay xeer nidaamyaha xeerka aasaaska oo ka faahfaahinaya wixii ka dhiman ama wixii qabyo tiraya. waxaan culinay istiraatiijiyada barashada HIV/AIDS-ka ee manhajka Soomaaliland lagu baranayo. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS. runtii waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaan imiday xafiis wax badan laga qabto. Axmed muddada uu joogay wax badanna wax qalab badan baa ka muuqda isaga iyo tiimkiisa. way qofkeedu wax ka qabto isaga iyo tiimkiisa waa sida uu mataqaana uu maamulo oo la shaqeeyo. waxaan rajaynayaa inay waxay ii yeeleen in hore loo sii dhaqaaqo waytaan ee wax dib loogu noqdo meesha aanay joogin. dhinacooda waxaa halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo qorshaynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha fulinta ee maanta xilka wareegsanaya macalinka weyne Axmed Cabdi Ismaaciil oo aanu laba jeer wada shaqaynay. agaasimihii guud ee wasaaradda qorshaynta ayuu ahaa markaan wasiirka ahaa. xafiiskan marka uu joogayna waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka inta badan dee madaxweynaha isma arkeen wasiirka caafimaadka iyo xafiisku baahiyeysa hawsha wadawada. waa nin aad iyo aad u qiimo badan, waa nin karti badan. Dr. Ismaaciil dardaari maayo. Ismaaciil mana dardaari maayo waayo aqoonteedii kartiyeedii waa ku aqaanaa. yari baan ku wada galnay iskuullada, jaamacadaha, meel aan ku kala hadnay ma garanay. shaqaan wada qabanay. markaa qofka aan taqaano jibiil ma la cuntay, jib ma la martay iyo waxaasaa la oran jiray. xaqiiqatan arday isku laba sariirood kale isku dhega seexda isku dhow oo qol wada gala oo imtixaan wada gala ilaa iyo shaqada laba bilood baa kala horreeyay. anagu komishanka wadaagahaan laba shay baan u joognaa anagoo ku duulaynaa xeerka komishanka dacwadaaga howlaha nala wareegiyo komishanku xilwareeg wuxuu sameeyey hagaha wareejinta qaranka oo uu muddo ka shaqaynayay. sababtii hagaha kalistay waxay ahayd markaanu aragnay baahida jirta oo xeerkana loo ogolaanayo ah in intaynu isku wareejinaa inta badan ay ahayd waxyaabaha fisikaalka ama muuqdee tirada shaqaalaha. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha maamulka iyo agaasimaha xuduudda shaqaalaha ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS. komishankan uu ka xaadirinayaa qaranka marka loo eego komishanada kale. waxaan u shaqaynaynaa bulsho aad u nugul mar walba takoor ku badan yahay iyo weliba bulsho ka dhaga adag inay qaadato wacyigelinta u haysata xanuunkan inuu ku yimaado cadho ilaahay oo inta badan u dhaga nugul inay qaataan wacyigelinta ay ogaadaan sida lagu kala qaado iyo sida lagu kala qaadin. dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaanu gacmaha isqabsan doono. maanta waxaynu u fadhinaa madal taariikhi ah. halkan waxaanu kusoo afmeeraynaa muddadii uu xilka hayay agaasime Axmed Cabdi Ismaaciil oo muddo yar oo koobanayay 9 bilood ku siman oo waxla laakiinse shaqo badan oo weyn ka qabtay komishankan oo ka muuqan doonta hawsha wareejin doonta.
iyo dhugmas isku wareejinayno waxaan kaloo soo dhawaynaynaa agaasimaha cusub Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed waxaan leenahay agaasima ku soo dhawow komishanka qaranka xakamaynta aydiska waxaa jooga shaqaale aqoon u leh caafimaadka karti leh dadaal leh shaqaale dhisan waan ku soo tabacnay dalkana ka jira 6 gobol ee waaweynaa ugu dambeyntii waxaa halkaasi si rasmi ah xilkii ula wareegay agaasimaha cusub ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS waxaana xilka u kala wareejiyey gudoomiyaha maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland